kusoo dhawaada dhageystayaal idaacadda wadajir boys ee laanta afka maaymaayga ee stuudiyaha Kiala gobolka Vermont ee waddanka Mareykanka. barnaamijka toddobaadkan una saqaadaan iyo may kamid ah qarxigii dhawaanka dhii magaalada Kismaayo ee waddankaas ay Soomaaliya oo la badbaadi gudoomiyaha kumeel gaarka ee Jubbooyinka Axmed Madoobe iyo may kala siin hayna barnaamijka toddobaadkan ay oo ka xisaabsan halka sano oo dhamaatay dawladda federaalka ee Soomaaliya wali in qabsami iyo wali in qabsam waay warays una siin ka saqaadnay siyaasiyiinta Soomaalibantu sidii aan aragoyan dawladda hooliya sidii ka dareerta iyo sidii kala laakiin markii uu ka horeyta ay ka bilaabana Cornel Abbas oo ka tarsanya guddiga farsamada ee maamulka Jubbooyinka ee magaalada Kismaayo oo qarax la ila baagsaday waqti iyo sakanagadan shirkii aan ka dareeray magaalada Muqdisho ee waddankaas ay Soomaaliya. Cornel Abbas iyo ninka warame qaabkii qaraxgaas ay dhii iyo wali in dooshay ka aragi sidaas oo kala ninka warama doonaya Cornel Abbas siyaasadda guud ee Soomaalibantu hadda xaadirkan ay meeli maroyta gaar ahaan halkii sano la sadhaafay wali in qabsoomi iyo wali kala kusoo dhawaada waraysigaas ay usoo koobanyo. Alaykum Cornel Abbas. Assalaamu warahmatullahi wabarakatuh. marka hore mayinka waramaas qaraxgii oo darad Kismaayo ka dhiyay sandi qaraxgaas magaalada sabab ma lan hirihay kasi sababta amaanka lan hirihay miya sababta amaanka daawada dhaqdhaqaaqa iyo dadka dhaqdhaqaaqsho iyo la xakameeyo kasi iyadoo saas lan xakameeyo magaalada oo bando la dhigi oo isaga sadareertan daraadiye iyo haddana qaraxgaas dhii miya hal furay usul furay diiradayna markii qarax dhiyay kasi hal furay magaalada diiradayna wanaan warku soo degay soo marka magaalada markii qarax dhii kadib iyo la furay miskaleetay ka hora la furay kadib qarax dhii marka baaburka qaraxga jeysidi trus may abaaray baaburkii oo gadoomiyaha fuulay miya trus ka abaaray kusoo guudi kasi marka adina baabur ma fuulayti baaburo ka horeeyay fuulayta miski ka dambeeyay baabur ka horeeyay saarnay baabur ka horeeyay marka wali sidii walan dhiyay aragti hayad baana gaari waxa badan kanayna hay laakiin dadka gaariga jigabi oo dadkii saarnay hadda badbaadina la meerigi oo gaariga adeega hay waraaydi gaariga adeega ahayti aka badbaadina jigaa saarnay hadda oo sida gudoomiyaha iyo saddexda nin kale la badbaadiyay jigaa saarnay kul dhamaadan hal qof meeyay kasi marka Cornel Abbas maynka waramaas dawladda Soomaaliya hadda jirta hal sano iyo dhamaatay marka dhinaca siyaasadda Soomaalibantu ahaan halkan sano dawladda jirayti ma suurta galin sheeg kartay halkan sano dawladda jirayti anaga ma ku mashquulsanaynay maamul sameynta iyo qoraanka alqaa'idada dawladda macnaha Jubbooyinka iyo Gedo sanadkii gudmo saddex dawlad iyo qoraanka dawladda iyo hay'adaha hadda alqaa'idada Jubbooyinka soo socdo ama baabaha soo socdo dawladda Jubbooyinka horeeya iyo ajardan adiga iyo sababti maladi jiray maamul sameynta dawladda federaalka oo hadda distinta ka sano ma ogolayna maamulkaas inuu ka sameeyay maamulkaas taageero caalami oo ah marka dhaqaalaha wada haysadaan heerkida nawaayid dawladda federaalka oo ogolayna
marka Maxamed Nuur hadda safar yaan bahay oo dawladda oo Jubbooyinka iyo dawladda federaalka iyo rahay dhinacaas Yurubta marka shirkaas ay may ka sabad doonyaad amaleey shirkaas weelka hadalada arrimaha Soomaaliya qaatay macnaha diidada bulshada iyo qaybada la horeeyo qaatay macnaha dhaqaale iyo la taageerayo maamulka gobolada iyo deegaanada iyo ciidamada federaal iyo waxyaabo noocaas macnaha qaatay la taageerayo fadhiidada guud alaabada jeeyna barnaamijyada horumarinta deegaanka horumarinta ala dalka Soomaaliya horumarinta iyo shaqada shaqada taasna jeeyna diidaaydo kaasi marka safarkaada oo Muqdisho aad ka jiraaytana may natiijo ka sadamaadi safarkaasi hadda la sheegay sagaal beelood oo deegaanka la kulmay iyo mareehaan gaar oo mara wadi diiwaan jiray sheegal ee diiri wada iyo dad inta ma sheegay ama ismaayil seenana meesha wax ka soo yeeshay oo halkabaro iyo ka soo mariyo diiri ku shaqeeyo horumarka halka shaqeeyo kadibna cadaalad ay ku soo istiyaal eka hada budaya insha Allah ta'ala barnaamijkii diiri shaqada ka hayada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta aragni barnaamijyada isticmaalna badbaadiyo saacada kaasi marka aad mustaqbalka rajada may ahaatay siyaasadda dhinaca Soomaaliya gaar ahaan beelaha Soomaali Bantu insha Allah ta'ala meesha inay muddo deegaanka inay diiri karo cadaaladna la suubiyo horumar dadkii dalkeena inay diiri wanaag jangaado dadaba horumar sida dadaba suuqka ay ku la midka ah inay diiri insha Allah ta'ala inay diiri insha Allah barnaamijyada maadiyada kaas ay ahay Colonel Abbas oo kamid ay guddiga farsamada ee Soomaali Bantu inka jir maamulkaas la ka dhisay Jubbooyinka magaalada Kismaayo ee wadankaas ay tahay Soomaaliya usugo ninka warmay qaraxii Kismaayo ka dhigay iyo siyaasadda guud ee Soomaali Bantu hadda xaadirkan ay tahay meeli maroyto haddana ay kala qadka telefoonka ninka jira siyaasiga kale oo roogo gobolka Arizona ee wadanka Mareykanka assalaamu calaykum wa alaykum salaam sidoo idaacadda wada jir boys adoo ka bilaawasa marka uu horeyto magaaga email aad roogto maxsanteena magaaday waxa way Idris Xasan Khamiis degenya magaalada Phoenix gobolka Arizona ana ay afhayeenka Wagosha marka maadaama aad siyaasiyiinta Soomaali Bantu gaar ahaan kuwan roogan wadanka Mareykanka marka aad fikrada siyaasi ahaan san aragayda dawladda halkan sanasan dhamaatay mayn qabsoom waaye ninka sheegaas faahfaahin nasiib aadna maasantana idaacadda meedaan wada jir iyo shaqaalaheeda dhamaan iyo wixii kale kala shaqeeyo iyo umada kale dhageysidaas baadan salaami markii nagado arrimaha siyaasadda Soomaaliya ama dawladda hadda oo federaaliga jirta waxyaabadii iyo horumarka deertii iyo waxyaalaha horumarka deerle waarag muhiim ah warsido maay 23 sano waxa anaga kurkurtuma ma jiraan dawlad iyo may qabad iyo may muqabale alxamdulillah rabbil alamin dawladda maanta jirta waxa way wax badan ayaa qabad la dhakare wax badan dhimina waxa way wixii qabad waaytana shayaalka indeer waaytana qadinya wixii qabatina waxa way wax buuqada way marka meel karaade magaalada Muqdisho maanta diyaaradii oo kabad Mareykanka iyo meel ka daqdo degweyte rakaabta qaadayte taasafto alxamdulillah rabbil alamin way dadka qurba joogta kana qadooyna wadankii xamartii hore oo isbaarooyinka iyo dhaca ka jiray habeenkii dadka la tiltiri aska dhamaatay marka wixii jiray qarax iyo waxyaalada sibay qaraxna waxa way Mareykan roogna dhiiway marka adduunka meel walba ka dhiiway marka kaas waxa way qofkii oo ilaahay qoroba ka dhimide inta kale waxa way dawladii sida hadda anaga oo dhigaha ka sheegayna miska warka dheewayna shirar weyn ka qabati hamar shirka siyaasadda oo 2016 ee socodka oo ugu gudubta one man one vote shirki oo maawdiinka shirka ka qabati oo manhaj oo la sameeyo Soomaaliya waxa way bangiga dhexe fa'iliti aniga xaq dhaqaale iyo xaq bulshada waxa way dawladda wax badan ba qabati waayo baldeekaro macnaha xalaaga flaminka akayti mid kale waxa way sidan niga magaala in ciidanka dawladda shahar in la qoro oo joogta qaadadoona ciidanka la diiwaan galiyo marka barlamaankii hal sana waxyaalada ka baradni oo ahay dagaal iyo qolo iyo ra'iisul wasaare madaxweyne isxisbeen iyo ra'iisul barlamaani iyo madaxweyne isreegiyeen iyo qalaaf taxmar iyo heshiisiyo iyo orto aadba arrimaha ka fanya mid kale horumarka deerta karaadana meeta arrimaha Jubbooyinka heshiisa la galay arrimihii marka hadda gorgortinka ma jira sidii wax la soo bifadi aqabada ku oo ida ku gudubta madada horumarka kala deerti waxa way caalamka
يا أقول سيدي وحوي أمريكا يوروبا ربح دونك أقول سيدي وحوي أقول سيدي دونك واحد دراسة لكن هدي شعب كبا ما يزال ما شعب كنا حتى دولة ديارنا يا أمريكا أنا ما ينقبل دولة إنه واحد بدن قبل كل واحد يرم لمن وحين لمن أنا دمي معنا فرنتا قولين كده بديتك يوحي لما يعني معناها أربريله هي أركض معنا. marka su'aal lamaad aan ka weydiiyo iyo may ate qolooyinkan Somali Bantu ama jireer weyn habbo qofka sidii in kasaw wal hadda horumar la taabad kara ama connection oo weyn oo silsuubida jire dawladda federaalka Soomaaliya halkan sano isa jirayti sidaad ogtaa horta dawladani meel la qasad dooradii wallaha 4.5 waxa way hadii شروط ميكي متعطى وحوي أفرت قبيل وينتا يو قوة صراحيونا ينظام لقص الدورة دي مركا مدحوينا حنا ميكو كوية سيدنا 4.5 كسيالة وحلو دي زمان كس برنمان كس ميشا فديانا يا لبقى خطار دينا دورو دينا دولد ها وحوانا قبتي وحبطنا ايا وحي قبتي يو وحي نغنين قبني وحي نقبني آدم بدنيا تاس مركا دليل مجرو سياسة سيدة معناها مسكالة وحوي ورماها الدولة بس سيدة وحل مر لقب سيدة ومس وحل معنا نقول قدوة واي واح ترتيب مرة مرحلة كديرة وي مركا بريقي خوري أنا سياسة إكشاعات بقل الجنايني لكن حتى مركا عادة نجيبنا دريا عن دنبه ركمت أنا كنا جبت حمر هاد معان تروغي أولا كل موية مروا بعيد عن السوق ولها وزيرة دا ولها برلمانكا وحيالة فربضان ايا لسعودة مركا تاس مركا ما يشينيت غير السعودة كالة الدريري مركا ما يحلاني إن مركز أبقان بنانك ستكنو مركا دولة دا وحاوي بيل شخص كليشة تاقنتا وحاوي وحمان غبط كرتو لكن أودي الشعب أحان يا وحكين غبط كرتو واي الدولة دا برتواري بميدا كس الدوري بيل أحان كس الدوري هدي إي ون مان ون فوت حيلينا باي استيد أحان يا وحن ينسي اللحيتي أنا دا سينين كويتا بيل أحان من نسكتو لكن بيل أحان ميونو واتو أنو جررويني أحان بس جبوينك أوكا مركي الشيغو ويبو هني قبض قرارات مركي أنا مركز قيد سعودك مركي بالعوضاي 4.5 من لكو قدواي كميزار لقبهاي حدي مركز سياسيين أتعدك نيشرو وناينا مركا دولة هدون وزير مكحلنا أغاسمية كحل فضي لك مركز مجرائي دك مركز أدى وحياء مركز دولة أجندها سياسة دولة أونين مركز سنة والك الدرو ومعناها على دقين سدو لكن الدولة الدورة دي رجل تكبحينا حمر سيدنا يورجي كله وحبنا قبضينا الله حريروه حمر كنولينا وحاول واحد كنولينا ريتان وحاول يتسميني باللاوي مركا أي سنت وحاول next year مرحلة إنه الركن معنا واحد دقات كرادنا مرحلة الركن واحد دقات كرادنا بركرت السياسة دقات كرادنا هدو حنا ديب كرادنا وحنا أقلات كرادنا marka fikradaha mustaqbalka Somali Bantu dhinaca siyaasadda dawladda hadda kadib dhismo doonta may rajayoyd mustaqbalka siyaasadda waxa way may rajayo waxa way wax badan ay muuqda oo positive ah waxyaalaha positive in muuqda ma aan rajayo Soomaaliya may hadda intaraad rabo wala baaw federalism marka may sheego qofka state-ka asaga ismaamule qofka ma iska leeyahay shacabka ayaa macnaha wax did kare shacabka ayaa wax ogolaad kare wax walba la suubiyoona waxa in la sameeyo fikradaha dadka la caruuriyo iyo wax walba la suubi karaa marka taas markii kale positive kan in muuqda kale ma yata markii la dhaho federalism way tuulada macnaha qiyarta sabqaad ida tuulada yar la dhaho ana ka soo buu amba dhaxaana ma kiyaala ilaa iyo door guri oo kale marka ninka oo kansalka madado ayaga sheegayna ninka kansalka madado iyaga dooradaayna marka federalismku macnaheedu ma aha nin xamar dhaqsadiri oo guriga taliye ma dadka shacabka deegaanka dooradaayna dadka deegaanka ayaa macnaha xooladaayna xulashada ma aha one man one vote ee la ka seeday hadii oo hadda intiig oo anaga hadda ka jirnay uli ka meel gaar kala ka bahay meel dawladda midga ka meel gaar waayo sharciga ama iskala dastuurka maanta niyaal ama iskala oo waliga Soomaalida ka xishiiti uli may way macnaha qabiyo way ma dhamaystirinyo marka wixii shirka tamar lan qabadi may way ku gudub shaway adiga garsoorka xagga iyo siyaasadda iyo wax badan ayaa uli maqanya marka lamadan sanad khalas oo meel fudu ina la diirsiyo marka aniga ma qabay macnaha mustaqbalka Somali Bantu waxa way wax badan ayaa daldoornada waayo ma xaana ragayaal aqoon yahani dad ganacsato hayna marka dad badan oo siyaasadda ka qeyb qaada doonada iyo aragweyne marka rajal aadan ninka fiicanta markii hore iyo hadda raja fiican lana marka
marka may rajeeyo waxa way xubino sastar inuu macnaha algoona inuu macnaha oo dadkii tartimaan oo stakeholders oo madax qabeelada oo tartiib aragdad geliyo iyo hayne aniga marka rajadeeda aad ma runta aad baan fiicanta marka dadkii kale may la siyaasiyiinta kale ruwanana in macnaha taas malayta iyagana ku qaadadoona marka shacabweynaha may ogaana macnaha in iyo qaadadoona doorashada marka kullay hadda lama sana wax badan weyn labana sanana in aan aruursano dadka wax gelino xagga horumarka marka wal badan ay rajayna dilaaxid oo taas qabeelin post badan tii jirta idris kama hadsanta eedeedan kama hadsanta tamaan si salaami assalaamu alaykum qoos ay ahayna siyaasiyiinta Soomaali bantu oo ninka waramayan halkii sana la sadhaafay dawladda federaalka wali in qabsamay iyo wali kala suurtagal sanadkii haddan dhamaaday dawladda federaalka ee wadankaas ay tahay Soomaaliya barnaamijka toddobaadkan oo siinka talgalna intaas yaa ka agya anoo wariyo mudka ninka si toos ah socodsiiyay warbixintaas ay tahay idaacadda Wadajir Boys Barlington Vermont